maanta waxaan ka hadli doonaa buugga la yidhaahdo kasbo qulubtooda. buuggani waa buug si qoto dheer uga hadlaya aqoonta fagaara ka hadalka iyo aftahanimada. 4 qaybood oo aad muhiim ah ayuu buuggani ku wareegayaa oo ay ka mid tahay diyaarinta khudbadda iyo qaabka qofka khudbadda u diyaarin lahaa, sidii qofku ogaan lahaa cidda ula hadlayo xog uga heli lahaa, iyo caqabadaha xagga fagaara ka hadalka ama aftahanimada qofka waxa weeye ka joojiya ay ka mid tahay cabsida fagaara ka hadalka la yiraahdo glossophobia-du qaabka u maareyn lahaa. sidoo kale wuxuu buuggu ka hadlayaa qaybaha speechka, yani khudbadooyinta ay u qaybsamaan iyo qodobka u dambeeya oo ah qaabka qofku u noqon karayo qof waxa weeye ku wanaagsan fagaaraha markuu ka hadlayo oo hadla si wanaagsan, xogta uu soo gudbiyo qaab wanaagsan oo saameyn leh. qodobadiisa ugu muhiimsan haddaynu u gallo waxaa ka mid ah waxyaalaha qofka u saamixi karaya inuu noqdo fagaara ka hadle wanaagsan ama qof hadalkiisu yahay hadal saameyn leh oo persuasive ah, dadka wax ka dhaadhicin og in uu ka hadlo wuxuu garanayo. qofka hadduu ka hadlo wuxuu garanayo waxa u fududaanaysa inuu dadka ka dhaadhicin karayo waxaas uu ka hadlayo. laakiin haddaanu aqoon u lahayn wuxuu ka hadlayo way adkaanaysaa in la fahmo oo dadka isaguna fahamsiiyo wuxuu ka hadlayo. waxyaalaha kale ka midka waxaa ka mid ah in qofku diyaar garoobo oo xog ku filan helo ka hor intaanu dadka waxba u sheegin. waayo qofkii haddaan xog haynin way adkaanaysaa in uu si faahfaahsan u soo gudbiyo xogta oo loola fahmi karayo. sida glossophobia-da kale looga gudbi karayo waxaa ka mid ah in qofku fikirka uu bedelo ah, yacni bilaa layla yaabaa, bilaan si fiican u hadli kari waayaa, biloo hadalkaygu saameyn yeelan waayaa. yacni waxa weeyaan waa cabsi aan la gaadhin, yani waa cabsi la iska mala awaalanayo oo dadka intooda badan ka joojisa inay si fiican u hadlaan. ama qofka oo focuska saara ama diiradda saara waxa weeyaan dadka iyo waxay ka filanayaan isaga. marka muhiimaddu waxay tahay ayuu buuggan inoo sheegayaa in qofku xoogga saaro sidii isagu soo gudbin lahaa uun xogta, aanu xoogga saarin dadkaana xoogga saarin kaliya taana xoogga saarin, balse isku dayo qofku inuu isagu sidii ugu wanaagsan uga soo bixi karo uga soo baxo. sidoo kale wuxuu inoo sheegayaa buuggu in preparationku amba diyaargarowgu yahay shayga ugu muhiimsan marka khudbad la jeedinayo amba cid lala hadlayo. waxaa la dhahdaa haddii aanad u diyaargaroobin aanad u diyaargaroobin sidaad u guulaysan lahayd waxa aad diyaarisay sidaad u guuldarraysan lahayd. way macnaheedu tahay haddii aanad si fiican u diyaargaroobin markaad khudbadda jeedinayso oona diyaargarow fiican oo kugu filan ood xogta ku heshay aanad helin, waxaad u diyaargarowdaa inaad dadka ku warkhashifanto. way macnaheedu tahay xogtaadu waxay noqonaysaa mid aan saameyn lahayn, hadalkaaga wuxuu noqonayaa mid aan kalsooni ku jirin, waayo waxaad og tahay inaanad xogtan waqti ku filan soo gelaynin. qodobka ugu dambeeya waxau inoo sheegaya inuu leeyahay qofku mar kasta ha ku dadaalo 3 qodob. qodobka koowaad halka xogta ka soo helayo ha ahaato mid la isku halayn karayo. qodobka labaad waxau inoo leeyahay qofku waa in uu og yahay ciddu la hadlayo, waayo haddii aanad garanayn ciddaad la hadlayso waxaa adkaanaysaa wixii aad adeegsan lahayd, yacni informationkii, xogtii, erayadii. waayo haddaad dad dhalinyaro la hadlayso iyo haddaad dad waayeel la hadlayso erayada xitaa kala adeegsanaysa aad bay u kala duwanaanayaan iyo tusaalayaashu. marka waa in qofku si fiican u garanaya cidda ula hadlayo. qodobka ugu dambeeya wuxuu leeyahay qofku waa inuu garanayaa methodka amba qaabka uu soo jeedinayo khudbadda. marka 2 qaab buu u soo jeedin karayaa qofku: qaab presentation oo soo jeedina oo adeegsanaya qofkii slides oo adeegsanayo, yacni computerkii waxa weeyaan iyo qalabkii kale ka mid ahayn projectorka oo kale amba screenkii, ama inuu qofku adeegsanayo waraaq qoraal ah. marka waa in khudbadiisaasi amba waxa weeyaan presentationkiisaasi u kala qallaadaan. way macnaheedu tahay waa inay u kala habaysnaadaan oo 3 qaybood u qaybiya khudbadaas. qaybta koowaad waa introductionka, waa furfurashada, wuxuu ku furfuranaya. marka waxaa ka mid ah furfurashada waa inuu aayad ku furfurto, inuu quotation oo yacni eray uu ku furfurto ah oraaho kala ama hadal xikmad leh, inuu ku furfurto xadiis, inuu ku furfurto aayad, ama inuu ku furfurto wax ka hadlaya research, yacni ama qodobka ugu dambeeya noqonaya su'aal. taasi marka waxay sahli doontaa in uu markiiba dadka attention-kooda soo jiito. qaybta labaad waxay noqonaysaa khudbadda waxaa la dhahdo podiga. podigu waa mucda, waa halka ay u dhimatay khudbaddu. way macnaheedu noqonayso waa halka loo gol leeyahay ay fariinta dibtii ku jirtay dadka loo gudbinaya. marka inuu qofku halkan uu si fiican u qodobeeya oo hadalkiisu ahaada mid qodobaysan. qodobka ugu dambeeya isaguna waxa weeyaan waa conclusionka amba closingka waxa la dhahdo, noqonaysa gabagabaynta hadalka. qofku markuu hadalka soo gabagabaynayo waa in hadalkiisaas uu siiro summary leh oo kooban uu ugu soo celin karaya.
si loola fahmo main point amba main idea amba fikirka guud ee ku jira ee uga jeeday khudbadaas intan haddii aad adeegsid waxaad noqon doontaa qof aan la joojin doonin saameyn ku yeesha cid kasta ula hadlo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.